السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعنا ونكسن دمان داودايش هذا قيمة هي قدرنا مدنو ميل كستو جوجتان وقت كستيد انتهاي وقتي وحيني وعنا هذا بالبادية نحرست بنا كركينا هاتو إن وحندوني يا مانتي إنك هلا أرين رونهانتي آدي جيا بسي وقتي يدان دنبنا كجرتي وحويان سوشيال ميديا تدبدين إنها أركان laakiin aniga markii horeysay soo gadhay ay tahay arintani waxay ka dhacday jigjiga iyo kawaanka lagu qala geela ee ku yaala jigjiga halkaasoo sida loola tacaamulayo ee waxa weeyaan loola dhaqmayo geela ee loo gowracayo ee waxa weeyaan loo gowracayo aad iyo aad u la yaabayso mid aad uga naxaysan ay tahay run ahaantii bal waxaan doonayaa inta aanan hadalka oo dhan bal inaad marka hore harto idinku laftiinu aad ila daawataan bal ila daawada fiidiyogan neefkaas geelas waxa la sameeyay isagoo oo nool ayaa lagu halaga goynayaa isagoo nool ayaa lagu halaga jaray bal aan ku sii socono bal ila daawada laga yaabo maanay ahayn run ahaantii neef xoolaa oo aan hadli karin waan iga daa ku odhanayn oo dhibka aad arkayso aad u geysanayso aad arkayso iyo kayfiyada iyo qaabka aad ula dhaqmayso cala laqal dee waxaan odhan karaa uun ama aynu odhan karnaa naxariistii ayaa ka tagtay dadkaasi waxay u baahan yihiin in waxa weeyaan arintaas la gaarsiiyo hadday kas ka tahayna dee waxa weeyaan dadka ka mas-uulka ah ee waxa weeyaan mas-uuliyadda u ahaya marka hore waxay geliyaan culimaduna ay waxu sheegaan dadka waxa weeyaan ka agdhowin ay waxu sheegaan waayo dee neefka marka la gowracayo saddex arrimood ayaan doonaya inaan ka idhaahdo bal neefka marka la qalayo ama geel ha ahaado ama waxa weeyaan ha ahaado waxa weeyaan ari ha ahaadaan ama lo ha ahaadaan awalan xadiidkii nabiga sala allahu alayhi wasalam markaad gowracaysaan aad samaynaysaan gowrac midka idin ka midi marka uu samaynayo gowrac uu neef gowracaya ama qalayo ha wanaajiyo waxa weeyaan dabxigiisa iyo gowriciisa ha wanaajiyo xadiidkii nabiga sala allahu alayhi wasalam kow laguma odhan garaac oo dil lugaha jarjar neefkii oo nool bay lagu goynayaan neefkii oo nool ay lagu hijareen haddana madaxii bay ka garaacayaan waxa weeyaan ay ka garaacayaan damiirka islaamnimo eeday naxariista kow mid idinka midi marka uu dabxi samaynayo ha wanaajiyo dabxigiisa bal waxaa laynoo diidayba iska daa inaad madaxa ka garaacdo isagoo nool lugaha jarjarto markaad midida aad ku biraynayso amaad ku gowracayso aada soofaynaysa inaad ka qariso waana tusin kan buu soo qabanayaa madaxuu ka garaacayaa kii kale gowracayaa neefkiiba wuxuu kusii ridayaa maxay cabsi iyo argagax
dadka sidaasa waxaa la doonayaa in waxa weeyaan arrintaas la gaarsiiyo nasteexa ahaan iyo wanaag ahaan lagu gaarsiiyo. haddii waxa weeyaan joojin waayaan ay bedeli waayaan arrintaa iyada ahna de markaas mas-uuliyiinta marka ka mas-uulka ah ayaa waxa weeyaan arrintaasi ay saaran tahay. waayo waxaan waa neef aan caqli lahayn. adiga maanta haddii qodax yari ku muddo waad dareemi kartaa waxa weeyaan waad dareemi kartaa. inaguna waxaanu samaynayba madaxii baynu neefkii ka garaacaynaa. wallahi aad baan uga naxay wallahi billahi arrintaas aad baan uga murugooday. neefdhan oo madaxa laga garaacayo 2 jeer iyo 3 jeer waxa weeyaan faash ama dubbe ama waxa weeyaan madaxa laga garaacayo. neefkii badasana uu dhacaya waxa weeyaan isagoo qaarna ay lugaha la hawla wala quwwata illa billah. walaalayaal waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala marnaba inaan naxariistiisa ka tegin yaa laga tegin naxariista. aad iyo aad baad mahadsantihiin meel kastoo joogtaan. sharaf iyo karaamo ayaan idin hayaa. cisi iyo sharaf ku noolaada. barnaamijkan sii share gareeya. channelkana waxaa weeyaan subscribe saara, like-tana ku qabtaa. inta aynu ku kulmayno barnaamijkan lamid waxaan idinku dhaafayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.